nin Shiinees reer miyi ah oo doonayay in uu magaalada soo galo qaalimihiisana hore u soo kaxaystay kadibna raba in uu xero uga dhigo dabaqa uu magaalada ka degan yahay. intaan u gudagelin sheekada haddii ay tahay markii kugu horeyso aad ma soo booqato nagu soo biir mahadsanid. nin u dhashay dalka Shiinaha oo doonayay in uu ka soo guuro miyigii uu deganaa soona galo magaalada ayaa dariskiisa ama jaarkiisa uga yaabsaday kadib markii uu la soo guuray 7 qaalimood oo ka mid ah xoolihii uu dhaqan jiray. kadibna uu xero uga sameeyay balakoonkii gurigii uu deganaa. ninkan reer miyiga ah ee u soo guuray magaalada ayaa jaarkiisa ama dariskiisa kaga yaabsaday saxarada iyo qeylada xoolaha. kadib markii jaarkiisa ay ku baraarugeen qeylo tiro badan iyo urta saxarada oo ka soo baxaysa guriga, waxayna arkeen ninkan oo guriga qayb ka mid ah ku dhaxaysta 7 qaalimood oo uu watay. ninkan oo soo degay magaalada kana soo guuray miyiga ayaanan ku soo talagelin halka uu degi doono, in xerada uu ku xareen doono xoolaha ama moorada ay la mid noqon doonto tii uu miyiga ku haystay iyo in kale. waxa uu markuu soo degay magaalada kana soo guuray miyiga oo uu degay guri dabaq ah uu waayay meel uu xoolihiisa ku xanaanaysto, gaar ahaan 7 qaalimood oo uu miyiga ka soo kaxaystay. waxa uuna halkaasi ka dhex arkay fursad kale oo ah in balakoonka guriga uu uga dhigo xero 7 qaalimood oo uu wato. dariska oo aad uga dacwooday ficilka la yaabka leh ee uu sameeyay ninka reer miyiga ah ayaa dacwad u gudbiyay booliska, waxaana lagu guuleystay in lagu celiyo xoolihii meeshii markii hore laga soo kaxeeyay ee miyiga ahayd, weliba si qasab ah. waxaana aad looga digtoon yahay in mar kale ninkan uu buuq ka dhex kiciyo dadkii dariskiisa ahaa.